daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawo muuqaalka xiga ee Toosane Technical. Marka aad account-ka TikTok sameyso, wuxuu TikTok ku soo bandhigayaa inteen kugu xiraya account-kan TikTok-ga ma Facebook-gaaga mise Gmail-kaaga. dadka qaar isla markii waxay ku xiraan application-kooda Facebook-ga, halka dadka qaar ay ku xiraan Gmail-kooda. waxaa si aad u fiican inaad TikTok-ga markaad account ka sameysato aad ku xirto Gmail-kaaga si uusan Facebook-ga kaaga saameynin. dadka ku xira Facebook mararka qaar waxay la kulmi karaan haddii Facebook dhibaato u ka gaaro in TikTok-gana sidaas uu habada uga baxo oo loo waayaba. muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sida aad u kala saari lahayd application-kaaga TikTok-ga iyo Facebook-ga. haddii aad TikTok sameysatay oo aad Facebook kula xiriirisay, waa aad ka saari kartaa TikTok-ga oo si madax banaan ayaa markaas u isticmaali kartaa Facebook-gana sidaa oo kale. oo haddii Facebook uu wax ka soo gaaro TikTok-gaaga uu nabadgeli doonaa. haddii aad doonayso inaad kala saarto Facebook-gaaga iyo TikTok-gaaga, muuqaalkan adigan ku duubay daawasho wacan. marka hore waxa u baahan tahay inaad soo kicsid application-kaaga Facebook. marka aad Facebook sidaan u soo kicso, waxaad xulinaysaa saddexda ilig ee sare ee gacantaada midig ama waxa loo yaqaano menu. halkaas ayaad markaas tagaysaa. markaad halkaas tagto kadib waxaad raadinaysaa halka ay ku qoran tahay settings and privacy oo halkaan ah. kadib waxaad xulinaysaa settings oo halkaan ah. kadib wajadana waxaad ka raadin doontaa meesha ay ku qoran tahay apps and websites aan raadino qaybta korwood. halkaan waxaa ku qoran apps and websites. kadib waan taawanaynaa. halkaan wuxuu ku soo gelinayaa marka applicationada Facebook aad ku soo xiriirisay. mararka qaar application aad Facebook ku soo xiriirinay waxaa leedahay applicationka Facebook ay u xir. mararka qaar marka dadka TikTok ku soo xiriirsado inta ayuu soo galayaa oo su'aashan qof kamid ah khiyaarta ayaa soo weydiiyay oo Facebook-giisa iyo TikTok-giisa ay ku wada xiran yihiin. hadda marka meeshan saa u jeedito Facebook-gan kuma xirna WhatsApp kuma xirna TikTok, laakiin labadan app midkan ayaan markaas ka bixinayaa si aad u aragto. sidaan ayaad ugu dhufanaysaa TikTok-ga kadib wuxuu ku soo qoraa remove. halkan ayaad taabanaysaa marka remove ay ku qoran tahay. wuxuu ku leeyahay yani ma laga bixinayaa barnaamijkan. kadib waxaan leenahay remove ha naga saar oo uma baahna ayaan leenahay. sidaan ayuu markaas wuxuu ku leeyahay you remove it from apps and websites ay walaagi markaas tuuray meesha appska iyo websites ka walaagi fasaxay. marka waad had delete gareysay oo waad dirtay isla application-ka aad u baahan noocaas ayaad u bixinaysaa. kuma hasid daawashada fadlan hadda channel-ka cusub tahay subscribe saar lana wadaag asxaabtaada muuqaalka u share garay. haddii aad muuqaalkan ka heshin like saar. inta aan ku kulmeen muuqaalka xigo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.